مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حط المامية maalinta qiyaame ee cadceedu dhowdahay ee hadh aanu jirin dee hadda waa maalin unbaa laydin waa maalin 50,000 oo sannadood u dhigata 50,000 caamin weeyaan afkun bay maalin ka tahay 50,000 oo sannadood baa meel la taagnaanaya 50,000 oo sannadood waa la isxisaabayaa 50,000 oo sannadood cadceeduna way dhowday qof walibana wuxuu dhididayaa wuxuu dambaabay in leeg xadiista nabigu duul bay sheegtay iyagu maalinta belada aan arkaynin iyagu hoos haysta meel ay harsadaan intan dadku kadeedan iyagu aan kadeedka ku jirin مثلا xadiidkan 7 kooxood buu nabigu tilmaamay inaanay kadeedka ku jirin 7 tan waxa ka mid ah imaam cadaalad sameeyay in madaxa waa cadaalad ku dhaqmay waxa ka mid ah nin dhalinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray waxa ka mid ah nin qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay salaad markuu tukado waa tii kale ka fakaraya oo mucallaq qalbuhu bil masjid waxa ka mid ah laba ilaahay dartiisu jeclaaday oo aan adduun iyo qabiil iyo xoolo iyo wax kale isu keenin ee diin isu keentay waxa ka mid ah buu nabigu yiri kuwaas oo dhamay waa acmaal saalix oo la qabto waxa ka mid ah nin wax sadaqadaystay oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn sakhiyo wax bixinaya waxa ka mid ah nin intuu salaadiisu taago ilmaynaya kaligiisa oo aan cidina la joogin ilaahay dartii la ooyaya laakiin kuwaas oo dhamay waa acmaal xabad cagsiga baa la tilmaamay waxa ka mid ah baa la yiri nin ay gabadhi u yeedhay qurux badan oo mansabna leh yani gabadhu hadday tabaqada bulshada ay kor u egtana ay ka mid tahay quruxna ay ku darsato waa waxa haween lagu raaco oo intaaba hadday isku darsato haddana iyadu hungurooto oo ku yidhi innii akhaafu allah gabadh saasiya intay dalabtay ayuu yidhi naa ilaahay baan ka cabsanayaa idhaaf idan isagu danbu ka tegay acmaal saalix oo kale lama tilmaamin laakiin danbu ka tegay kaasi waxa la tilmaamaya 7 aakhiro wax harsanaya inuu yahay ama quraanka waxa ilaahay ku tilmaamaya nabi yuusuf oo sifaadka ugu sareeya lagu tilmaamay laakiin muxuu ku amaanan yahay warawadatu allati huwa fi baytiha an nafsi waghallaqat alabwab gabadhu gurigeedaba joogay ee madaxda u ahayd ee doonsanaysay ayaa jeclaatay hunguraysay waliba albaabada iyo daaqadaha iyo meel walba u xidhatay cidla ka heshay isu dhaldhalaalisoo tiri soo dhawow dabeetana macaada allahi innahu rabbi axsana mathwaay innahu laa yuflixu dhaalimuun buu ku yidhi ilaahay baan ka magan galay buu ku yidhi xoog ku kufsabaystiri markaasuu cararay dabeetana waa tii marada ka dilaacisay odaygeedii bay ku kulmeen meesha waa kuwii dumarka kale iyo waxadana heshiiyey oo la rabay ay tidhi waa kaaka igu caayayseene ama wuu aqbali ama xabsaan ku ridi ka waran haddii gabadha boqorku tiraado ama waa ku xidhaya ama guriga soo galaysaa waxa la kala dooranaya waa xabsi waliba waa xabsi boqortooyo oo aan sanado iyo tiro toona ku lahayn inaad xabsiga ku waarto iyo inaad iska tumato kala dooro baa la leeyahay markaasuu wuxuu leeyahay rabbi sijnu ahabbu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu xabsiga aniga agteyda lagaga kalgacal badan yahay waxay igu yeedhayaan haddaanad ilaahu kuwa waxay igu wadaan iga sarfininna asbu ilayhinna waa kun min aljaahiliin ilaahu kuwa hoogay baan ka mid noqon ilaahay wuxuu leeyahay ducadiisii baanu ka aqbalnay oo beladii baanu ka nabadgelinay laakiin jeelkaa la geliyay inuu jeelka galaa waxaa laga dhigay inay nabadgelyo tahay oo jeeluu ku jiro wuxuu kaga nabadgalay baa la leeyahay zino idan gabadhaa si kasta isugu dayday oo ka cararay waxa ay tilmaamaysaa miisaanka ay ku leedahay diinta agteeda waxa kuugu filan zinadoo laga tagaa waxay ka mid tahay acmaasha wanaagsan ee ilaahay ducada ku aqbalee lagu baryo nabigu wuxuu inooga warramay
qolo god gashay oo dabeetana dhagax ku awdmay meelaha buuraleyda ah roob badani hadduu helo biyuhu waxay kaxeeyaan maxay ciidday rogaan dabeetana dhagxanta waaweyn way qodaan haddii wax xooggani aanay haynin buuraa dhagxantu iska soo duldulcoodaan niman baa roob god ka galay dhagax baa afka kaga daboolmay khalaas dee moobille ma jirin meel loo yeedhaa ma jirto marka waa adduun inaad ka sabirto nin waliba war maxaa camal saalixa ee ilaahay ducadeenna ku aqbali karaa baa la isweydiiyey rabbaa la baryey midi waalidkiiyo uu samafari shuruu sheegtay midna ammaanu sheegtay nin shaqaale uu shaqaynayo xoole kaga tegay oo xoolihii intay tiro bateen aanu khiyaamaynin oo markuu u yimi laba buurood dhexdood xoolo daaqayo ku yidhi waxaasoo dhan adaa leh ka saddexaad wuxuu sheegtay gabadha ilmaadeeriyiina uu jeclaa oo uu si kaste u raadiceeyo waayey oo maalintii dambe uu timi iyadoo soo jabtay oo abaarsatay oo baahan oo yidhi i ogolow hantina waxaad doontaan ku siinaya oo 4 kiilo wax ka badan oo dahaba uu siiyey inay ogolaato oo baahidu badday oo dabeetana markuu u soo faydfaytay ku tiri warnimow ilaahay ka boqo oo ha igu bikra jabinin waxaan xaq ahay ilaahay ka baqa baa qalbigiisa gashay ittaqi illaah bay ku tiri ittaqi illaah hadaabaa qalbigiisa gashay dabeetana dib buu maradiisa u guntaday ilaahay oo haddaan dartaa u sameeyey buu leeyahay dhagaxa nagaga fayd ilaahay dhagaxu kaga fayday idan zinadoo laga tagaa waxay ka mid tahay acmaasha saalix ee ducada lagu aqbalo waxaa kuugu filan qisadii saara nebi ibraahim gabadh qurux badan buu qabo saara la yidhaahdo intaan haajara la siinin gabadhiisi isagoo wato soo hijrooday ayuu nin boqoro waddankii soo galay waddankanuu soo galay mid habaar qabaa haysta wixii gabadha qurux badan uu arka askartu yidhaahdaa soo qabta ii keena nebi ibraahim oo xaaskiisa iska wataa laga qaaday islaantii dabeetana boqorkaa loo geeyey ibraahim baa boqorkuu yimi oo waro maxay gabadhani buu ku yidhi nebi ibraahim wuxuu yidhi waa walaashay dee filislaan bay walaala ku yihiin saasuu ujeeda waa walaashay buu ku yidhi dabeetana wuu soo daayay ibraahim gabadhii baa loo yeedhay gabadhii buu nebi ibraahim ku yidhi naabal hay beenini iyuu kaarqabuu wax kalena imanini way timi way isaga soo xaydxaytay waxay tidhi in yar sugaan weysaysto oo 2 ragcadood tukaday waa weysaysato salaad bay bilowday dabeetana ilaahay waxay ku baryaysaa ay leedahay allahuma in kuntu aamantu bika wabirasuulik wa axsantu farji ilaahayow haddii aan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaaga rumeeyey oo farjigayga ilaashaday ilaahu kaa iga qabo bay tidhi dabeetana abu suuxa ee gariir waa dhaca isagoo suuxsan ayay haddana cabsatay war hadday naftu ka baxdaan maa la yidhahdaa iyadaa dishay ilay labadooda qoraa joogeen ilaahayow yaan lay qabsana ka kici meeshay tiri dabeetana wuu soo kacay doqonnimadiisa ma joogina haddana dib uu soo xaydxaytay mar kale haddana ilaahay barida ilaahu haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaa rumeeyey oo farjigayga dhowrtay ilaahu iga qabo sidiiba haddana ku dhacday haddana way cabsatay ilaahu yaan lay qabsana ka kici bay tiri uu soo kacay mar saddexaad ba haddana iska soo faydfaytay mar kale haddana ilaahay bariday subxaana wa tacaala sidiiba ku dhacday haddana markii dambe uu yidhi war waa maxay shaydaamadana ay keentay haajarana intuu siiyuu yidhi nataana qaado iga tag haajaradii nebi ismaaciil dhashay iyadaa lasoo siiyey markaa dabeetana waa la isku soo daray xadiidkani muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa sidii xadiidkii hore waxyaabaha ducada lagu aqbalo inay ka mid tahay ixsaanulfarj qofka oo farjigiisa dhowrtaa waxa ilaahay ducada ku aqbala inay ka mid tahay saari rabbigeed waxay ku bariday iimaanun billaahi wa birasuulih wa biixsaani farjiha inay ilaahayna rumaysay rasuulkiisana rumaysay farjigeedana ay dhowrtay ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku bariday idan ayuha alaxiba waqtiga waa goor dambe ayaan idinku badinay waxaan ku soo koobayaa leeyahay
إلهي وحين ليه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فحشي أما الزنا بقى إلهي دن كالريبة زنا دا سنة كبائر تيكمتي والذنب ويندي سو انتا إلاك توسيك لواوي كتغستي سنة انتا سو أجراي ليضاي dholalkaynu joogno waa dholal xumahaasi uu fudud yahay qofku inuu sameeyo bale meel kasta ay joogto ardayga yar wax baranaya dhan walba gabadh qaawan oo isa soo qurxisay bale maryaal la xidho gabadh waliba jidhkeeda halka u quruxda badan la maradeeda laga soo dalooliya mid naas muujisa mid dhabar muujisa mid caga muujisa mid baalkay qurux bido meel baynu joognaa fasaadku oo caynkaa yahay haddaynu rabno inaynu dhowrsanaano waxaynu u baahanay in iimaankeenu kor noqdo aynu xumahaasi ka durugno xumahaasi aakhiriya adduunba nolosha wuu baabi'iya ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay haddaynu samaynana dembiga intaa leeg ee gaalnimada iyo qatliga la socda inuu yahay haddaynu ka tagnana ajarka intaa leeg ee lagu aqbalo عباداتك يدعوينك إنه كمدي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال رضوانا نحو السماء لندعو الله خالقنا يحيطكم أبدا